xafladan afurka ahayd ee ay soo qabanqaabiyeen midowga ganacsatada islii ee magaalada Nairobi ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda ugu sareysa waddanka Kenya oo ay ku jiraan madaxweyne Ruto iyo ku-xigeenkiisa. xafladani waxa ujeedkeedu ahaa sidii ganacsatada Soomaalida ee waddankani Kenya ay dowladda ugu muujin lahaayeen kaalinta weyn ay ku leeyihiin dhaqaalaha waddanka. kulankan afurka ahaa oo ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiin ay ka mid yihiin wasiir aadan barre ducale, xildhibaan yuusuf xasan, xildhibaanada Soomaalida ee baarlamaanka Kenya, governorka Nairobi iyo mas'uuliyiinta guddiga ganacsatada ayaa lagu muujiyay baahida gaarka ee xaafadani ay qabto, taas oo ay sii dheer tahay sida islii fursado shaqo ay ugu abuurtay malaayiin Kenyaana. All successive governments were put to them, but I think the time was now for our community and for the Muslim community. And it is something very simple. Your Excellency, every year, close to 10 million Muslims, Kenyan Muslims, go to Mecca. They go to the pilgrimage. They go for Hajj and they go for Umrah. And they go from January to December. Our embassy is in Riyadh, about 400 to 500 kilometers away, western part of Saudi Arabia. muhiimadda maanta waxaa weeye inaan soo dhaweyno oo fadhiga isla wadaagno madaxweynaha Kenya iyo madaxda kale oo maanta la timid sifa oo danahayni iyo maslaxadayni oo ku ilaalshana waana noo ballan qaadeen in oo maslaxadayni iyo maalkayni si gooni noo ilaaliyaan. marka annaka isli waa ka weynaanay, waan ka ballaaranay, ganacsigaynu waa sii faafihaya. Nairobi gudaheed kali ma aha, hadda degmooyinka kaleeto gobolada meel kasta Kenya ayaa ku faafihaya. dowladdan oo maanta jirtana xagga maamulkeeda qayb weyn ku haysana Soomaali haddaan nahay. wuxuu muujiyay jacaylka uu qabo dadka muslimiinta ah iyo dadka Soomaaliyeedba. wuxuu yiri markuu ka hadlayay diinta, qaabka aad diintiina u haysataan annaga waxay nagu dhiirigelinaysaa inaan idinku dayano oo tusaale aad noo noqotaan. waxaan aad horta u mahadcelinayaa barnaamijkan ka soo shaqeeyay xildhibaankeenna Yuusuf Xasan iyo Jeermanka iyo guddiga Islii Community ayaa ammaan ku mudan, iyo wasiirkeenna Ducaale asagana ammaan ayuu mudan yahay. barnaamijkan caawa halkan ka soo hagaajiyay anagu sharaf iyo wanaag bay noo ahayd. waxaanay marka sare u qaadaysaa magaca iyo qiimaha ganacsatada Soomaaliyeed ee Islii ay leeyihiin, maadaama maantu ay hor joogeen oo ay khudbada ka jeediyeen iftaar ayagu ay samaysteen oo aan loogu yeerin, madaxweynaha uusan noogu yeerin. waxaa jirta annagaa u yeeranay, annagu marti noo ahaa. meeshana waxay ka muujiyeen madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka, chief prime cabinet secretary-ga iyo speakerka baarlamaanka intaba in qayb weyn oo muhiim ah aan ka ciyaarayno dhaqaalaha dalka. madaxweynaha waddanka Kenya ee Ruto ayaa hoosta ka xariiqay in ganacsiga xaafadda Islii uu halbowle u yahay dhaqaalaha guud ee waddanka Kenya, isla markaana Soomaalida uu ka codsanayo inay si laba jibaaraan, iyadoo uga mahadceliyay fursadaha shaqo ay umuurtaasi abuurtay. waxa uu tibaaxay dhanka kale in wax weyn laga qabanayo baahida xaafadda Islii ay qabto ee guddiga ganacsatada ay gudbiyeen oo ay ugu horeyso dhanka nadaafadda, waana arrin ay si weyn u soo dhaweeyeen Somalida. The Islii district business community are very committed business people. They are the engine of the economy of our city. And you pay your taxes, and you pay your service charge, and you pay whatever it is, and you support millions, you support jobs, you support our economy. I want to thank you in a very special way and to assure you of our support in making sure
that you continue to play the role that you are playing in driving the wheels of our economy in this city. The two things that I have agreed with Governor Sakaja for the city of Nairobi is that we are going to sort out the garbage. Takataka katika hii mji wa Nairobi tutaipiga marufuku, na I am confident there is enough progress that is being made so that we can have a waste to energy program that will clean the city of Nairobi, and Eastleigh is one of our target areas. ganacsiga xaafadda Eastleigh ayaa hogaaminaya guud ahaan ganacsiga ama dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee guud ahaan geeska Afrika. Isman Fantastic Universal TV Nairobi.